madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Jigjiga iyadoo halkaasina uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Maxamed Cumar. Hada warbixin arrinkaasi ku saabsan wariyaheenna Qaamuus ayaa inoo soo koobaya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u kicitay dhanka iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb gali doono xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo maalinta bariya lagu qaban doono magaalada madaxda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Jigjiga. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay oo kaga hor yimi xuduudka magaalada Togwajale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud عمر عبدي إلي وقرينا وحا هالكاسي كور بحية سفر كمدحوينها سوماليلاند أفايين كمدحتويدة جمهورية الصوماليلاند أحمد صليبان ضحل waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay maayarka degmada Gabiile Shucayb Maxamed Muuse oo isna waftiga u sii galbiyay dhanka iyo xuduudka Itoobiya. madaxweynuhu hogaaminay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ka qayb galaya xuska maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo ka dhacaya caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaan halka soo gaarsiinay waan ku faraxsanahay in waftiga madaxweynuhu ka qayb galo maalinta xuska qoomiyadaha Itoobiya ee lagu qabanayo magaalada Jigjiga. dowladda Itoobiya waa dowlad saaxiib weyn la dalka Soomaaliland oo waqtiyo badan oo maaragtay ciriiriyaha Soomaaliland la soo dabaalatay oo abaal weyn ku leh. dhinaca kale dowladda hoose magaalada Togwajale iyo gudida horumarinta magaalada Togwajale ayaa maanta hirgeliyay wadadii u horeysay ee laami ah ee abid ay yeelato magaalada Togwajale isla markaana dhigay jaygii iyo daamurkii labadaba. waxaana halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay wadooyinka magaalada Togwajale maayarka degmada Togwajale Xaashi Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha gudida horumarinta jidadka magaalada Togwajale Yuusuf Cali. waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah laba arrimood oo mucjisa ayaa halkan maanta aanu kaga hadlaynaa. waa mid koowaad iyadoo oo maanta jayg iyo gaamurkii aanu dhignay magaalada Togwajale abid ugu horreeyay oo aan hore loo dhigin. waxaa maanta oo kale oo taariikh weyn oo Wajale ay leedahay laba madaxweyne oo ku kulmay magaalada Togwajale maanta. waa arrin taariikhi ah madaxweynaha kilka shanaad iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan halkaasi ku kulmay. marka horeysa ilaahay baa mahad leh ilaaha noo suuro galiyay inaan maanta laamidii ugu horeysay aan ka hirgelino magaalada Togwajale. magaaladan oo ahayd dhoobay oo magaranaysa siday ahaydna dadku wada ogaa wax badan oo horena aan ka qabanay oo dhammaan carrituul aan ku dhamaynay suuqyada magaalada. haddana waxaan ku rajo weynahay inaan dhammaan laami ka wada dhigno intaan roobku magaranaysa aanu ina soo gaadhin aan wada gaarsiino oo magaaladaasi sidaa ay u qurux badan tahay laamidaasi maanta ay noogu bilaabantay inay noogu dhammaystiranto. ilaahay baan ka rajaynaynaa inay noo dhammaystiranto baan weydiisanaynaa inuu magaranaysa inoo dhammaystiro. magaalada Togwajale ayaa maanta waxay u ahayd maalin taariikhi ah iyadoo maanta ay ku kulmeen labada madaxweyne ee ka kala taliyay labada daamood ee ay magaalada Togwajale ka kooban tahay isla markaana laga hirgeliyay jidkii ugu horeeyay laami ah ee abid ay yeelato magaalada Togwajale. waa wariye Qaamuus TV-ga caalamiga Royal TV magaalada Togwajale.